markaan tagnay saaki sagaalkii barqanimo garoonka diyuuradaha diyuuradii meedka qaadi lahayd iyo diyuuradii waftiga qaadi lahayd galbin lahaa maxaa la yiraahdaa janaasada wax ka galbin lahaa markii la fuulay oo labada diyuuradba la istaaray ama muxuu ahaa bayloodada ay dhaqaajiyeen diyuuradii aan saarnaa oo ka mid ah dadkii saarnaa markii albaabka loo soo xiray waxa uu yimid nin nalagu yiri wuxuu ka socdaa nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodkii diyuuradii waa la damiyey waa la isweydiiyey عبار بماشي أقسمه رئيس الوزراء حفيظ رئيس الوزراء إيوه وزير أشكر إيوه ومحوها الرتبة يدحقلين علاد ملك جرت محوها يال راديي إسلام مركز صدرا ديوردي ونورس فولي وحال الدمان سود دقة دولكم سود دقة دولكم صور دعني والس ويديو وحال السبب ديوردي كلو أميد كوديوان وفته محمد الله يستاه سيوت صوت وربنا كبعدي وحال سود جي هذي ساريين سنتر عبد الله الشيخ إسماعيل iyo senator iftiin xasan iimaan iyo afayeen kii hore ee Jubbaland Ahmed Arab diyuuradan ma bixiso saasaad ku baaqanaysaan arintaas markay dhacday waxa weydiiyay amarkan yaa soo bixiyay xagees ka soo fulay waxa noola sheegay amarkan inuu ka soo fulay ama uu soo gaarsiiyay wasiirka duulista hawada nin la yiraahdo Omar iyo nabad sugidda Soomaaliya muxuu ahaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ama taliska nabad sugidda Soomaaliya amar ka soo baxay inay tahay nolol sheegay arintaas markay dhacday annagoo qiimeynayna marka wax badan dadka saaran diyaaradda oo muxuu ahaa janaasada u socday iyo isqabqabsi meedka korkiisa inaan ku booqno annagoo diidayno aniga iyo senator iftiin waxaan go'aansanay inaan ka soo harno diyuuradda maadaama la go'aansaday maadaama ay muxuu ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreysay ama muxuu ahaa wasiirka duulista hawada ha ahaado ama taliska nabad sugidda ha ahaadee haddii wax isku ooleen inaan mataqaanaa ka harnaan go'aansanay markaan diyaaraddii galnay nalaga hor istaagay sababo jira awgood taasoona sabab u ah in waxaad ka aragti duwan tihiin dadka maanta xukunka haya dalka nologa dejiyay diyaaraddii annagoo ah xildhibaanadii senataradii ka soo jeeday dowlad goboleedka Jubbaland waa nasiib darro aad baan ugu xunnahay wax meesha ka dhacay maanta falka meesha ka dhacay ilaa 3 saacadood ilaa 4 saacadood ku dhow meeshan lagu haystay waxa nasiib darro ah in fakarka dawladda maanta dalka ka talisa ee Villa Soomaaliya Villa Gardaran aan u bixinay aragtideeda ka duwan tahay nologa dejiyay diyaaraddii arintaas waa arin fool xun waa arin ceeb ah waxaan leenahay ninka dalkan u dhiibay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inuu Soomaaliya hogaamiyo maanta qof iga aragti duwan ayaan ka daba qaylinayaa waa nasiib darran leenahay maanta arinta ayada ah Farmaajo maanta waxaan ugu fadhinay amniga dalka inuu sugo coronavirus-ka dalka ka socdo oo sugo colaad beeleedyada deegaanada ka soo cusboonaaday oo laba dawladda isku direyso ka wax ka qabto coronavirus ka qabto fatahaadaha ka qabto ummadda shacabka Soomaaliyeed garab istaago diyaaradii sida xaqdarrada gardarrada looga riday shacabka Soomaaliyeed ay saarnaan lagu xasuuqay ama bardaala lagu riday arinteeda uu ka hadlaan u fadhinimoogii senator maanta aniga aragti duwan iyo xildhibaan aniga aragti duwan oo tacsi u socdo ayaan diyaarad ka reebayaa waxaan leenahay Soomaaliya I am sorry Soomaaliya I am sorry Soomaaliya I am sorry arintaas waa arin aad aan ugu naxno arin nasiib darro u soo hooyay Soomaaliya anagu waxaan kula xisaabtami doonaa dalka maanta waxaan u dhiibay Farmaajo uma aanan dhiiban Fahad Yaasiin inaba sugidda talo uma aanan dhiiban insha Allah ta'ala sharcigan horgeyn doona maxkamadahan tagi doona xuquuqda muwaadinimo xuquuqda xildhibaannimo xuquuqda qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay in lagu tagto la yiraahdo maanta waad iga aragti duwan tahay waxaadna iga aragti duwan tahay saas diyaaraddan tacsiid u socoto ma raacis waxaan leenahay waa nasiib darro aad baan ugu xunnahay